mahadsanid daawadayaal halkaad naga daawanaysaan oo studio Royal 24 ee bariga Saudi Arabia jimca kastana aad naga daawataan wararka bariga dhexe wararkan idin haynana maanta waxaa kamid ah maxkamad ku taala magaalada madaxda Masar ee Qaahira ayaa ku xukuntay 3 sano 3 nin oo u ololeeya dimuqraadiyadda qaybta ay ku lahaayeen barnaamijkii u dambeeyay Ahmed Mahir Ahmed Daouma iyo Maxamed Caadil ayaa ah dadkii ugu horeeyay ee lagu xukumay sharciga cusub ee barnaamijka aan ahayn islaamiyiin 3 nin ayaa kamid ahaa hogaamiyayaal barnaamijyadii 2011 ee lagu riday Xusni Mubaarak dawladda Masar ayaa xidhay kumanyaal islaamiyiin ah laakiin hadda waxay beegsanaysaa dadka u ololeeya dimuqraadiyadda iyo xorriyadda halka saraakiisha iyo xukuumadda ay gacanta ku hayaan militarigu ay xalay sheegeen in xisbiga Akhwaan Muslimiinku yahay al-Qaacida lana oran karin waa xisbi dalka wax ku leh dhanka kale ciidamada militariga ayaa albaabada u laabay jariidada ku hadla afka Akhwaan Muslimiinka halkaas oo ay sheegeen inay dadka ku baraarujiyaan mudaharaadyo iyo waxyaabo ka dhan ah ciidamada militariga wararkaanu ka helayno wadanka Suuriya iyo dagaalyahano gabdho Soomaaliyeed ah oo muddaba ku sugnaa wadanka Suuriya ayaa la sheegay sida uu saxaafadda u xaqiijiyay aabaha dhalay gabdhahaas oo dalka Suuriya u jihaad ka tagay waxa dhaawaca mid kamid ah gabdhaha isagoona inta raaciyay inuu dhawaan filayo inay dib ugu soo laabtaan dalka Norway oo ay ka tageen gabadha dhaawaca ah ayaa ah mid yar oo daadeeda la sheegay 16 sano inay jirto halka mid kalena ay jirto 19 sano iminka waxa ay gabdhuhu ku sugan yihiin guri aamin ah waxaana qorshuhu yahay in laga soo saaro Suuriya oo Norway dib loogu soo celiyo sida waxa yiri aabaha dhalay gabdhaha oo iminka Norway ku sugan ayaa xilli uu baadi goobayay gabdhihiisa uu gudaha u galay dalka Suuriya halkaas oo sida uu sheegay lagu aftuubay laguna jir dilay muddo 2 isbuuc ah gabdhahan walaalaha ah ayaa muddo 3 bilood ka hor waxa ay ka tageen Norway iyagoona u jihaad tagay dalka Suuriya si ay u caawiyaan muslimiinta dagaalka halka ka wada waxaa la sii xoojiyay dadaalka caalamiga ee lagu doonayo in lagu joojiyo dagaalka Suudaanta Koonfureed halkaas oo la aaminsan yahay inay kumanyaal qof ku dhinteen 10 maalmood ee la soo dhaafay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa laba jibaaraya tirada ciidanka nabad ilaalinta ee ka jooga dalka oo ah midka ugu da'da yar adduunka oo ka dhigaya 12,500 oo askari xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ku booriyay labada dhinac madaxweyne Salva Kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar inay joojiyaan colaadda oo ay bilaabaan wada hadal siyaasadeed oo lagu dhexdhexaadinayo dagaalka ayaa ka sii daraya kala qaybsanaantii qabaa'ilka Suudaanta Koonfureed Master Salva Kiir waxa uu ka tirsan yahay qabiilka Dinka halka Master Macharna uu matalo qabiilka Nuer dagaalka ayaa bilowday 15 December markaas oo Master Salva Kiir uu ku eedeeyay Master Machar oo horey u ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenka ilaa inta xilka laga qaadina bishii July inuu afgambi isku dayay Master Machar waa uu beeniyay inuu isku dayay inuu awoodda xoog ku qabsado koonfurta Suudaan Mareykanku waxa ay soo dhaweeyeen wadamada ka qayb galay sidii ay u kala dhexdhexaadin lahaayeen sidii nabad iyo wada hadal looga dhalin lahaa koonfurta Suudaan wadamadaas oo kamid ah Ethiopia iyo Kenya Ra'iisul Wasaaraha Turkiga Tayyip Erdogan ayaa xilalkii ka qaaday 10 wasiir oo kamid ah xukuumaddiisa kadib fadhixadii la xiriirta musuqmaasuq lagu soo eedeeyay qaar kamid ah madaxda dawladda qaar kamid ah wasiirada iyaga codsaday inay xilka ka degaan waxaana laga yaabaa inay isu soo taagaan doorashooyinka qaar hore ayay isu casileen qaar kalena aniga ayaa xilka ka qaaday ayuu yiri Erdogan oo shalay shir jiraad ku shaaciyay isku shaandhayn xukuumaddiisa arrintan ayaa ku soo beegmaysa maalin kadib markii 3 wasiir oo xukuumadda ka tirsanaa xilka ay iska casileen kadib fadhixad la xiriirta musuqmaasuq mashaariicda dhismaha ee wadankaas waxaana kamid ah wasiirka is casilay wasiirka arrimaha gudaha wasiirka bay'adda iyo ganacsiga ciidamada booliiska ayaa xabsiga dhigay qaar kamid ah ganacsatada xiriirka dhowla leh xukuumadda Erdogan oo ay ku jiraan maareeyayaasha bangiyada hoos yimaada dawladda oo lagu eedeeyay inay lunsadeen lacag waxaana kamid ah maareeyayaasha laga soo saaray gurigiisa lacag gaaraysa 4.5 milyan oo dollar waxaa qaar kamid ah wasiirada xukuumadda Erdogan lagu eedeeyay inay si musuqmaasuqa ku siiyeen mashaariicda dhismaha shirkado iyo waliba ganacsato xiriir dhowla leh ra'iisul wasaaraha iyo qaar kamid ah wasiirada waxaana sidoo kale lagu eedeynayaa in lacagaha laga dhacay bangiga Turkiga la marsiiyay wadanka Iran arrintaasna oo jabinaysa cunaqabatayntii dhanka dhaqaalaha ee la saaray wadankaas Iran
iminkana waa wararkeenii ka baxsanaa wararka bariga dhexe. bartamihii wiigan oo si rasmi ah loogu dhawaaqay taariikhda inta la xasuusto in koox dhaqaatiir ah ay ku guuleysteen in qof bukaan ah ay ka bedelaan wadnaha loona geliyo wadno gacan ku samays ah. dhaqaatiirta u dhalatay wadanka Faransiiska ayaa maanta ku guuleystay inay qof wadnihiisa daciifay u geliyaan wadno macmal ah ama gacan ku samays ah isbitaal ku yaala magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska. wararka waxaa lagu sheegayaa in ruuxa bukaanka ah oo lab ah uu hadda uu neefsanayo una hadlayo si caadi ah kadib qaliin dhowr saacadood qaatay. Dr. Marcelo oo madax u ah kooxda dhaqaatiirta ee qaliinka samaysay ayaa u sheegay warbaahinta inay ku faraxsan yihiin inay tilaabadan qaadaan oo ay noqdaan kooxdii ugu horeysay ee dhaqaatiir ah ee samaysa qaliin wadno lagu bedelo. Dictorkan waxa uu xusay in wadnahan la sameeyay uu 3 jeer ka culays badan yahay kan wadnaha caadiga ah isla markaana ay aaminsan yihiin inuu shaqeyn. warbaahinta Faransiiska ayaa ku waramay in wadnahan gacan ku samayska ah oo qaab ahaan u eg wadnaha dabiiciga ah ee alla bini aadamka ku abuuray ayaa ku shaqeynaya badiba loo dhameystiray qalabkii uu ku shaqeyn lahaa kaas oo awood u leh in uu dhiiga kala firdhiyo. halkaana waxay noogu dhamaaday wararkii bariga dhexe. عويل عقارة رويال تي في بريقة دحي.